oo 240 jaamici oo qaranka aqoon soo bartay oo mustaqbalkii dalka noqday oo meelo badan wax ka dari doono haddii eeba idmo inay maanta jaamacadii ka baxayaan waa guul aynu wada gaadhay dhammaanteen iyo qaran ahaanba muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa tilmaamay fagaarayaasha caalamka ee aqoonta lagu gorfeeyo in ardayda Somaliland ay guulo waaweyn ka soo hooyaan 90% galasada la isugu tago caalamka oo dhan halka koowaad bay ka galaan nooc kasta oo yihiin waayo Burco hadii loo qoray suugaan talo qarannimo difaac qaran waxgarad intaaba hadii lagula tartay maayo waxa laga rabaa Burcana waxa loo dhibaato dalka jira inay ka noqoto inay xaliso oo aan la tartamin taana idinka ka sugayay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sanaag arinta waynu isugu tagayna mar labaad ilaahayna waa tala saarayna xagga iyaga xukuumad ahaan yanagaba waxaan ka ballan qaadayaa wax alle wixii anagu aanu qaban karno ee qaranka sharcigiisu intii la sharcin karo intii la gudbi karo xilkana saaran waxa weeyaan dadka isku hayna haddii laba kooxood qabtaan aqligu ma aha inaad midna ku dilaanto midna wixii loo dhamayso taa waa isku dilay xaq ma waxaan ku dilaanaa wax alle iyo wixii xagga fududayna ee aan qaranka wuxuu dhiman ama dhibaato kale nagu abuureyn inaanu aqbalaabaan